waxa weeye wasaaradda waxbarashada ee dawladda ay ka qaadatay shahadooyinka imtixaanka dugsiyada imtixaanka shahaadiga ma isleedahay xurguf siyaasadeed oo u dhaxaysa mas'uuliyiin ayay waxay ku waayayaan mustaqbalkii ardada reer Puntland oo adiga madaxweynaha xataa u tahay waa su'aal wanaagsan walaalkay Saciidani madaxweynaha Puntland dhowr jeer ayaan cazumay oo aan xamar ku cazumay oo ku yir walaal waxna dul marin bal mar nagu soo deg oo noo imow aan wada fariisano aan ka wada hadalno runtii guud ahaan xaaladaha dalka ka jira ay kamid tahay arintaas ilaa haddana uma suurtoobin oo weli wuxuu ku jiraa safarro dawladahaas dariska ah ama meelo fog waxaan jeclaan lahaa inuu noo yimaado oo aan wada fariisano anu 2 jeer baan tagay maxaan ku raahdaa Puntland tagay runtii dadkana intuu joogay 2 jeer baan tagay dadkuna si sharaf leh oo wanaagsan runtii isu dhaweeyeen oo waa dad runtii dawladnimada jecel waa dad systemka federaalka ah runtii aad iyo aad u jecel oo de waxay sheegaan inay yihiin hooyadii federaalka oo ay ahayd inay hormood u noqdaan runtii ka shaqeynta iyo wada shaqeynta dawladda dhexe dawladaha xubnaha ka federaalka waa dad runtii aad iyo aad u wanaagsan isagana waxaan rabay runtii inuu dadka dhageysto rabitaankooda iyo waxay jecel yihiin oo ah in dalka midnimadiisa la xoojiyo wada shaqeynta madaxda ay wanaagsanaato si dalkan uu u yeesho horumar iyo amniba uu u yeesho marka taasi waa saas arinta waxbarashada adiga aad soo qaaday runtii waa nasiib daro inaan ku murano ama lagu wada hadlo maamul maanta waxaan jeclaan lahaa inaan ku murmi lahayn tayada caruurteena kor ma u qaadnaa maxaa naga halaabay maxaan ka bedelnaa inaan maanta uu ahaan lahaa muranka ka jira waa nasiib daro maxaa yeelay caruurta Puntland waa caruurteeni weeye waa caruurteydii weeye dani caruurta Soomaaliya waa caruurtiisii weeye wasiirka waxbarashada naftigiisa isaga mas'uul ka ah hawshan loo xilsaaray inuu arko wada shaqeynta dawladda maxaan ku raahdaa dawlad goboleedka Puntland inay muhiim tahay oo si kasta aan u hanan karno wada shaqeyntooda aan u sameeyno waxaan aaminsanahay inuu aad ugu dadaalay intii uu joogay inuu soo dhaweeyo uu la shaqeeyo wasiirka waxbarashada ee Puntland marka waxa loo socdana waxay tahay quality waxbarashada in kor loo qaado tayada waxbarashada in kor loo qaado meeshaas meesha loo socdo oo loo sameeyo standard halbeeg loo sameeyo lagu ogaado iskuulkee failure ah iskuulkee fashilmay macallimiintee weeye macallimiinta aan waxba dhigayn hadduusan halbeeg uusan jirin ama standard uusan jirin lama ogaan karo iskuulada hadlaysan laakiin hadduu standard jiro adduunkana waa jiraa maraykanku ka jiraa regional exam ayaa la yidhaahdaa adduunka dhan waa jiraa halbeeg la ogaado iyadoo dee dowlad goboleedku ay imtixaanadooda hadday rabaan ay wataan yaa waxaa jira mid la ogaado standard ah tacliinta guud ahaan dalka meesha u marayo gobolkee liita iskuulkee liita systemkee liita si kor loogu qaado waxaan ka hadlayna waxay tahay caruurteena waxbarashadooda in tayadooda inaan kordhino si ay ula tartamaan ardada kale ee caalamka ah oo marka shahaadadeena la arko la yiraahdo shahaadadani shahaadada ugu sareysa way waxbarashada dugsiyada sare in la yiraahdo waxaan ku xaqiijin karnaa wada shaqeyn ka sokow inaan abuurno standard halbeeg inaan abuurno halbeegaasna aan ogaano xagee wax ka halisan yihiin